waxaan ku salaamayaa tii nabigeena iyo diinteena isku salaano oo salaada adduunka ku qaalisana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa waxay raaca waxaan aada u mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha xilliyeedkiisa koowaad iyo ka labaad mudanayaasha golaha fadhiya sharafta leh oo iskugu yimid maanta inay ii suurtageliyaan in ay ii dhameeyaan sharciyadda aan ku fadhiyo golaha wasiirada aan hawsha qaranka ugu hayo intii ka dhineyd inay ansixiyaan ama diidaan iyaga akhtiyaaru leh labadaba. waxaan kii sheegayaa inaanan intiinaa golaha fadhida midna ku odhan ambay diida ambay ansixi. waxaana idinku waajibaa in qof ahaan waxaan ahay cabdilaahi haba yaraatee soo ogaataan markaa idinkoo seeftiisida ku xaqa idiin siinayo waajibka islaamnimada ah inaad taa idinkoo ku qiyaas qaadanaya oo aan qolo iyo saaxiib iyo xisbi iyo nin la xumaynayo midnaba aad ku qaadanayn inaad meesha booska amba wasaaradda uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bixi cabdi ii magacaabay in idinkuna waajibkiina ka gudataan ayaan idinku yimid maanta idinku hortaagana. hadalka baqin maayo waayo dee intii aan 3 bilood iyo xogaagii aan hayay xilka 2 jeer baan la kulmay guddida dhaqaalaha khayraadka ee golaha. 2 jeer baan la kulmay warbixinteeda waa haysaan iyaguna way hayaan. waxaa wasaaradda haddaan wax ka sheego wasaaraddu waa 3 waaxood muhiimadda weyni waa qaybta batroolka qaybta tamarta iyo qaybta macdanta marka laga tago maamulka. 3daba waa 3 xubnood oo waaweyn oo waddanka wax badan laga tali karo. waxaana qabaa mustaqbalka waddankeena inuu ku xiran yahay khayraadka dhulkeena ku jira oo aad loo sheegay inuu wanaagsan yahay. sida wax looga qabtay sida loo saasooray sida looga faa'iidaysto ayaa qabaa inuu ku xiran yahay mustaqbalka iyo horumarka waddankeena. kaasna waxaa lagaga shaqayn karaa xilka wasaaradda oo si wanaagsan loo guto iyo xilka qaybtiina leedihiin oo si wanaagsan loo guto. labada haddii la isku kabo waxaa qabaa wasaaradda wax badan bay faa'iidayn kartaa. waxaan gaar ahaan tilmaamayaa batroolka oo wasaaraddu aada uga shaqayso. 2 shaqadood baa kala jirta. mid galeel baa la yidhahaa midna waxa la yidhaha raanka. waxay haystaan balokyo waxay dhameeyeen baadidii ama daatadii way dhameeyeen way sameeyeen. markay bilaabi lahaayeen fayskii labaad ee aandirilka waxaa dhacay covidkii. 2 sannadood waxay ku maqnaayeen covid welina way ku maqan yihiin. shaqadu halkaasay isu taagtay. alxamdulilah bishii dhaweed waxaa bilaabmay inay rajo weyni bilaabantay inay galeel iyo shirkadda batroolka ugu weyn taiwan ay leedahay dowladda taiwan oo ilaa 6 waddan ama 7 waddan batrool ka soo saarta oo afrika iyo isku jirta latin america inay heshiis la gashay ganeel ay ka iibsatay 148. markaa taasi ay keentay in sanadkan la bilaabo diyaargarowgii loo diyaargaroobay sidii xeelkii horreeyey loo qodi lahaa. kaasina uu labada sanadka ilaa 23 uu xilgeli doono ugu dambeyn in la dilgalayo xeelkii horreeyey. raagaasna waxaa filayaa inay iyadoo daba socoto oo ay iyaduna bilaabi doonto marka waqti la suuro geliyo inay dilkoodii bilaabaan. tamarta waxaa naga caawiya macdanta iyo shidaalka waxa dawladda ama wax ururada caalamiga ama iibada oo naga caawiya marnaba ma jiraan. halka ururada caalamiga iyo dawladuhu naga caawiya waxa weeye مثل سيدو كله بلسيرو كله وإنرجيا مشاريع بدن هو ناقصن أي صوص هذا عندهم يصدام واحد الحوق صار واحد يلا بحر إن كبرتكم فلان مستقبل كصوص هذا لهذا سوما لا نور مية مغارب واحد وضع إن ما هو كرنتنا وحبون لو يستمروا مثلا ريميجا لو بيلا ريميجا تيس كمان يلا إنه استعمال كالسولر وشتو إلى هالكاين الجالسيو هالكاين الجالسيو مقالة جيجر الجالسيو مقالة دوين الجالسيو
meel walbana energy ku habboon lagu isticmaalo rajo weyn waa ku qabaa tobanka sanadoo soo socda in wax badan ay iska bedeli doonaan tamarta aynu shidano aad iyo aad baan ugu rajo weynahay macdanta waxa weeye wax aad u muhiim ah waddankeena macdanta lagu leeyahay ومثل دولس كسب إلى متقدم إلى باري إلى مزام كشاه مع عدم بدل كتير اسمعي مش كذا تعالى وحوي معناتها وحنا بلا مي لا كذا إلا كل شيء يقول لي أخذتك لكن هو الواحد تعجبه إلا أكيد تريس كذا لكن ما جبته إلا ما أنت سهامل وين أول سنة أول هذه من والله هذه كتبته يريد كتبته إلا تعالى هلا اللي ما كانش كتبته ما مال بالكم وايو شكله واحد بروديوس هذا كده كور بالونه أم بايرون بالونه أم بحنا بلاكسن بالونه فهو يجي لك كتبته أنت لك يا كتبته كمان جواب كتبته مركب حياة مهمة يعني كنت ده الحياة وطبعا هو إلا يرجليو باريس وين ووضع كله ربوع عليه سهامي وين وربوع عليه وضع بعدين كنت تنوعي هاي يوم أنت لك وعلى عطسنا وزير الأمصار والرسول أنت لك مركب واحد كأسر يا وعن صورنا يا عن كأسر يا حوي هذا الخوضي شدال روحي شروع لي نلقى الله تاي ولا شقيت هو نكال وتوم رب حماش شروع لي نلقى الله وقوي هذه شغل هاي هاي إن شروع ده نوع حساس وحصلوا بعض أول شغل يا وحصلوا بعض هنا شيء إما كنت تجي بلد جوري كنت جاي تراي وأنا جالس كنت لبعض النكاحية يلا يجي إنسان وعلى الأرض وعشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته